السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنو ونكسن داوديال كسو دوادة تبينتينا برنامجك سوماليا اي سياسة هبين والباح ليضان وكاليات ستوسا وقد داوتان channel كينا qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijkeena aynu ku qaada dhigi doono ayaa waxa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay qasaaraha qaraxyadii ee dagaalkii tooska ahaa ee ka dhacay deegaanka Janaac Cabdalle ee maamulka Jubbaland al-shabaab iyo Jubbaland warar kala duwan ayay ka soo saareen dadka deegaankana xoga dheeraad ah ayay banaanka soo dhigeen laas caanood waxa ku qulqulaya ciidamo deegaanka ah oo hab qabiil u abaabulan gaadiidkii dagaal ee ugu tirada badnaana magaaladaas ayay la galeen gudiyada ka ariminaya magaalada Laas Caanood ee odayaasha dhaqanka oo go'aan qaraar mar kale ka qaatay Somaliland haddii ay tahay markii ugu horeysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo ka mid noqo kumanaan kun oo saaxiib ah oo halkan aynu ku leenahay waa habeenimo ay sii baxayso Talaado Arbaca ayaa soo galaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay 7 bisha Maarso sanadka 2023 waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu ka hormarnay warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay weerar ku bilowday qaraxyo ismiidaamin ah oo saakay aroortii maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ay ciidamada sida gaarka u tababaran ee Danab iyo kuwa maamulka Jubbaland ku leeyihiin deegaanka Janaac Cabdalle ee galbeedka ka xiga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose wararka ayaa waxa ay sheegayaan in dagaal toos ah oo u dhaxeeyay raggii weerarka soo qaaday ciidamadii ku sugnaa xerada muddo halkaasi uu ka socday ila wareeti lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in al-shabaab ay cagta mariyeen saldhigaasi kadib qaraxyo iyo dagaal culus oo gaadma ah oo halkaasi ay ku soo qaadeen wararka ayaa sheegaya inuu jiro qasaare lixaad leh oo ka dhashay weerarkan labada dhinacna soo kala gaaray marka laga reebo raggii isqarxiyay al-shabaabkii halkaasi ku sugnaana la laayay sida saraakiil ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo Jubbaland ay u sheegeen warbaahinta saraakiisha weerarka ku dhintay waxa kamid ah Carab Maxamuud oo kamid ahaa ilaalada gaarka ah ee madaxtooyada Jubbaland oo maalmihii la soo dhaafay halkaasi ku sugnaa qaar kamid ah dadka deegaanka ayaa inoo sheegay in weerarka oo gaadma aha uu dhacay xilli aroora isla markaana ay jiifeen ciidamada inta badan halkaasi ku sugnaa iyo saraakiishooda oo qaar badan oo kamid ah ay qaylaan habeenkii kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarkan sida uu shaaciyay afayeenka dhinaca howlgallada kooxda al-shabaab Cabdulcasiis Abu Muscab waxaana sidoo kale kooxda warkeeda ay ku sheegtay in ka badan 80 saraakiil iyo ciidan halkaasi ay kuleysay kooxda al-shabaab ayaa war ka soo saartay weerarkan ku bilowday ismiidaaminta oo saakay aroortii ay ku qaadeen xeradan ay ku sugnaayeen ciidamada Danab iyo kuwa Jubbaland weerarka oo dagaal toos ah u xigay afayeenka howlgallada kooxda al-shabaab Cabdulcasiis Abu Muscab wuxuu sheegay in sidii ay u soo qorsheeyeen ay u rideen al-shabaab ayaa sheegatay inay la wareegtay guud ahaan xerada oo ay cagta marisay ciidamadii saldhigaasi ku sugnaa wararka qaar ayaa sheegaya in weerarka oo gaadma aha uu dhacay xilli aroora isla markaana jawiga uu ahaa mid aad u degan oo xitaa aan la filaneyn in weerar kooxdan uu ka imaan karo kooxda sheegashadeeda inay dishay saraakiil badan iyo askar waxa beeniyay saraakiil ka tirsan ciidanka xooga dalka gaar ahaan kuwooda Danab iyo kuwa Jubbaland oo sheegay in al-shabaab cagta la mariyay sawirro iyo muuqaalo dheeraad ahna ay keeni doonaan iyagoo sheegay in dhaqdhaqaaqa al-shabaab ee weerarka xarumahan ay la socdeen isla markaana la fashiliyay waxa muuqanaysa in kooxda al-shabaab ay kordhiyeen tallaabooyinka ay weerarada noocan oo kala ugu qaadayaan xeryaha ciidamada horey waxay uga geysteen Xawaadley Hilowlagaab Halgan iyo waliba Galcad oo ah deegaano laga xoreeyay maleeshiyaadka ururka al-shabaab oo xilliga waabarigii ay weeraro ku soo qaadayeen waxaa loo arkaa guud ahaanba deegaanadan inay yihiin deegaano istiraatiiji ah iyadoo Janaac Cabdalle dhawaan lagala wareegay ururka al-shabaab iyo deegaano hoos yimaada deegaanada inay isaga baxaan al-shabaabna ay weeraro abaabulan soo qaadaan ayaa waxay ka mid tahay istiraatiijiyadooda laakiin waxaa muuqata in xilligan dowladda iyo maamul goboleedyada aysan wax badan ka baran ciidan ka baxay Gaalkacyo iyo Garowe oo hab qabiil u abaabulan gawaari dagaal oo aad u tiro badan wata ayaa waxa ay gaareen Laas Caanood oo xiisad ay ka taagan tahay waxa marba marka ka dambaysa ka sii daraysa xiisada dagaal ee ka taagan magaalada Laas Caanood ee xarunta gobolka Sool ee waqooyiga Soomaaliya taasi oo u dhaxaysa SNM iyo kuwa deegaanka
wararka ayaa sheegaya in maanta xaalad kacsanaana laga dareemayay gudaha magaaladaasi, waxaana labada dhinac ay ka wadeen dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan oo daandaansin dagaal u muuqda dhinacba dhinaca kale inuu sameynayo. ila wareegtay lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in Somaliland iyo dadka deegaankaba ay heleen gurmadyo gaaraya jiida hore ee aaga lagu dagaalamayo oo mar walba xabadu ay ka bilaaban karto. sida ay ogaadeen warbaahinta deegaanka, ciidamo dheeraad ah oo ka baxay magaalooyinka Gaalkacyo iyo Garowe ayaa xalay ilaa iyo saakay gudaha u galay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, kuwaasi oo si diiran loogu soo dhaweeyay deegaanka. ciidamadan oo u abaabulan hab beeleed isla markaana ka soo jeeda gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn ayaa ku biiraya ciidamo aad u tiro badan oo maalmihii aynu ka soo gudubnay iska xaadirinayay furmaha dagaalka. dhinaca kale Somaliland ayaa iyadana ciidamo dheeraad ah ku soo daabushay duleedka magaalada, ciidamadaas oo laga keenayo magaalooyinka waaweyn ee Somaliland isla markaana la doonayo in gebi ahaanba lacagta lagu mariyo ciidamada jabhadda SSC oo muddo ka badan bil gacanta ku haya magaalada Laascaanood iyo hareeraheeda. Somaliland ayaa lagu eedeynayaa in colaadda ay horinayso xilli xalay madaafiic ay ku garaacday qaybo ka mid ah magaalada, sidoo kalena rasaas ay ku soo riday ciidamada ku sugan furmaha dagaalka. dhaqdhaqaaqyadan ayaa uga sii daraya xaaladda cakiran ee ka jirta gobolka Sool, halkaas oo weli ay iska hor fadhiyaan ciidamada labada dhinac. ciidamada Somaliland iyo kuwa deegaanka ayaa shalay dagaal kooban uu dhex maray, xalayna waxaa dhex maray dagaal kooban oo madaafiic ay barbar socotay, iyadoo xilligan aysan muuqan doorka ay dhexdhexaadiyaasha isku dayayaan inay ka qaataan in ciidamada Somaliland laga saaro gobolka. in ka badan 600 oo qofood ayaa dhaawacyo soo gaaray, 200 oo ruuxna waa ay ku geeriyoodeen tiro ka badan. welina Laascaanood waxay u eg tahay magaalo dhiig badan uu ku sii daadan doono. lama oga xaaladda iyo sida ay ku dambeyn doonto, laakiin Laascaanood xaaladeeda waa laga dayrinayaa. kani waa kitaabka Ilaahay, waa kitaab la doonayo qof kasta oo muslima inuu barto, waa kitaabka cadeynaya booska aad ka dagayso jannada haddii baad guulaysato. in kastood ka xifdsan tahay ayaa ay ku eg tahay gurigaaga siday axaadiista rasuulku ay sheegeen. haddaba ma jaanis ma u weyday inaad barato qur-aanka kariimka? ma ka cabanaysaa inaad labada gelinba aad shaqayso? waxaan kuu hayaa maxadka tartiilul qur'aan online. waa dugsi lagu talagalay qof kasta oo mashquula inuu waqtigiisa siiyo isla markaana uu hab online ku barto qur-aanka kariimka. waalidweynaha qurbaha ku nool, waalid ka faa'iideyso fursadan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada islaamka. waana maxad kuu furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca. waxaana ubadka loo dhigayaa barashada qur-aanka kariimka, barashada akhriska higaada luqadda carabiga, barashada afkeena Soomaaliga iyo barashada culumta shareecada islaamka sida kutubta fiqiga, axaadiista iyo tafsiirka. waxaa sidoo kale waalidiinta la baraya isla markaana laga saxaya ataxiyaadka, salaada iyo aayad kursida. waalid hadda ka faa'iideyso oo hadda isqora maxadka tartiilul qur'aan online oo ah dugsi fac weyn oo ay sanad kasta ka qalin jabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool. ballanteenu waa inaynu hore ula xiriirno maxadka tartiil qur'aan online. maxaa sabab ahaa in uu waayo siyaasiyiin aad u tiro badan oo 20 ku dhow oo xisbigiisa isaga tagay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame? ilaa iyo 19 xubnood ayaa ku dhawaaqay in ay ka baxeen xubinnimadii xisbiga Wadajir oo ka mid ah axsaabta siyaasadeed ee ku meel gaarka ah ee ka jirta Soomaaliya. xisbigan waxaa hogaaminaya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. doorashadii ugu dambeysay Warsame waxa uu keensaday 15 cod maadaama la kala dooranayay shakhsiyaad oo aan xisbiyo la kala dooranayn. Wadajir xisbi ahaan waxay leeyihiin astaan dheelitir dowladeed. xubnaha ku dhawaaqay in xisbiga ay ka baxeen waxaa ku jira qaar dhawaan shaqooyin ka helay dowladda federaalka, xubno horay musharaxiin kale u dhisayay xilliga doorashada sida xildhibaan Sanyare oo Saciid Dani dhisayay, iyo qaar hore uga tagay xisbiga balse aan shaacin oo hadda qayb ka ah liiska dadka isaga baxay xisbigaasi. haddaba sababaha keenay in xisbigan laga wada cararo ayaa waxaa ka mid ah xubnaha sheegay inay ka baxeen xisbiga Wadajir waxay sababta ku sheegeen arrimo u gaar ah, laakiin warbaahinta waxay ogaatay in xubnaha qaarkood go'aankan u qaateen dano ay ku qabaan dowladda hadda jirta iyo in ay diidan yihiin fikradaha hogaamiyaha xisbiga ee ah
in mararka qaar la iftiimiyo waxyaabaha qaldan dowladda dhexdeeda marka la fiiriyo, taasi oo xubnaha ay u arkaan haddii ay sii socoto saameyn xoogan inay ku yeelan karto danahooda. labo, maxaa saameyn ah oo ay ku yeelan kartaa xisbiga wadajir? Soomaaliya hadda xisbiyo siyaasadeed ma gaarin isku filnaansho marka la eego. Weli dalka kama jiraan xisbiyo rasmi ah oo dhammaan xisbiyada diiwaan gashan waa ku meel gaar. Dadweynuhu weli xisbiyo ma kala dooran oo doorasho axsaab ma aanay dhicin guud ahaanba dalka. Siyaasiyiinta waaweyn ee shacbiyadda leh ayaa weli la kala xushaa xilliga doorashada. Siyaasiyiinta aan sidaa u muuqana waxa ay yihiin kuwo ku tiirsan qabiilaadkooda oo garab weydiisanaya. waxaana loo arkaa sidoo kale in ay isaga tagaan siyaasiyiintan xisbiga wadajir ay ku qasabtay saameynta taban ee xubnaha ka baxay xisbiga wadajir oo la dareemi karo, taasi oo macquul ka dhigi karta in xisbiyo kale ay ku biiraan si ay danahooda u ilaashadaan. waxaana loo arkaa sidoo kale in marba marka ka dambeysa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uu garab ka weynayo qoyska iyo qaraabada iyo qabiilka uu ka soo jeedo, taas oo keenaysa in hoos u dhac ballaaran uu ku yimaado qorshayaal kasta oo uu dejinayo. Cabdiraxmaan inkastoo shakhsiyan uusan si rasmi ah uga hadlin arrintan, haddana waxaa loo arkaa in Damo Jadiid dabarjebin ay ku sameysay xilli uu bilaabay maalmihii aynu ka soo gudubnay barnaamijyo uu ka tabinayo YouTube-ka iyo Facebook-ga, isla markaana uu wacyi ugu magac daray kuwaasi oo uu ku dhaliilayo dowladda hadda talada haysa, isla markaana uu ku soo bandhigayo dulduleelo xoogan oo dowladdan ay leedahay. guud ahaan waa naga intaa tabinteena barnaamijka Soomaaliya iyo siyaasadda. muuqaalkan kan xiga intaan dib ugu kulmi doono, nabadgelyo.